cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee Soomaaliland ayaa maanta cisbitaalka gargaar ee magaalada Hargeysa waxa uu ku booqday wariye Khadar Macalin Deeq oo in muddaaba cisbitaalka la jiifay xaalad caafimaad darro. wariyaha ayaa muddo dhowr cisho ka hor waxa ciidanka wadooyinka Soomaaliland ay u geysteen jirdil aad u foolxun. cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro gudoomiyaha xisbiga wadani ayaa wariyaasha waxa uu kula hadlay afafka hore ee cisbitaalka gargaar. waxa dhanka kale cabdiraxmaan ciro u mahad celiyay wariyaasha goobta ku sugnaa Faisal Maxamed Aadan Fiifa, Xamse Cali Bulbul iyo Badri Koosar. cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro oo noqday sarkaalkii ugu sareeyay ee Soomaaliland imika xil haya ee soo booqda tifitire Khadar Macalin Deeq oo ciidamada Soomaaliland booliisku dhac u geysteen ma jirto cid ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi ama saraakiisha ama wasaaradda warfaafinta oo booqatay Khadar Macalin Deeq misigta ayuu laba dhaawac ka qabaa oo dilaaca waana dhaawac halis ah oo u baahan cisbitaal dibadeed islaan filayo oo aan dalka gudihiisa waxa laga qaban karin. Khadar wuxuu ka mid yahay wariyaasha ugu sumcadda badan Soomaaliland ixtiraam kale ee degan. Dr. Ciro waxaan leenahay shukran laka saxaafadda Soomaaliland kuma iloobi doonto maalmaha ay baahan tahay ama dhaawac xasaasiyad u gaaro ama ka dimuqraadiyaduba waxaan leenahay xukuumadda madaxweyne Biixi saraakiisha wasaaradda warfaafinta ee booliiska waa inay gudataan mas'uuliyadda ka saaran shacabka Soomaaliland khaasatan waxaanu tabaynaa wasaaradda warfaafinta aan hoos iman jirnay oo aan ka weynay mas'uul booqda wariyaha ciidamada booliska Soomaaliland dhaawac u geysteen. aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro oo maalintii shalay tahayd uu dalka yimid oo dabcan ay taasi muujinayso qiimaha uu saxaafadda Soomaaliland u hayo inuu halkan ku soo booqdo saxaafadda Soomaaliland oo dabcan Khadar Macalin Deeq oo dhibaato ciidamadu ay gaarsiiyeen uu markiiba idihiisa ku soo arko gudoomiyaha dadaalka iyo kuwa kaleba waan u haynaa abaalka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. aad iyo aad ayaan saxaafadahan ugu mahad celeynaa booqashada uu maanta ugu yimi walaalkayo saaxiibkayo saxaafi Khadar Macalin Deeq oo shantii cisho laga soo gudbayba xaalad caafimaad darro u jiifa isbitaalka gargaar kadib markii dhaawacyo ay gaarsiin ciidamada booliiska Soomaaliland. gudoomiye waan kuuga mahad celeynaa waanaanu ku ognahay mar haddii aad garab istaagtay saxafiyiinta oo intaasoo cisho shanta cishaba aanay jirin ciidamadii dhaawaca u geystay iyo mas'uuliyiintii xukuumadda ee xilka qaranka guud ahaantii hayay ay soo booqan waayeen isla markaana ku hagradeen goobta. waxaan farxadii ah inaan soo booqdo saxafiga tifatirihii telefishinka bulsho ee tacadiga loo geystay halkan saa ka maqlayseen dhaawacyo halis qaba oo u baahan dhakhtar dibadeed. waxa ay darraa Soomaaliland saddex waxbay ku caanbaxday oo ay magaca ku heshay. mid wuxuu ahaa hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waa ka warhayseenoo gowracay ugu jiiday xukuumaddani iyo xisbigeedii. midna waxaa saxaafadda xorta waxa lagu qiimeyn jiray Soomaaliland waddanka ugu xorriyad qowl badan geeska Afrika. tiina waa arkaysaan maanta waxa dhacaya markii ugu horeysay maaha waxaana rikoorku sheegayaa in xukuumadda kulmiye tahay tii ugu tacadiga badnayd saxaafadda xorta. midna waxa xuquuqul insaanka in la ilaaliyo waa arkaysaan oo tani waa xuquuqul insaan lagu tuntay muwaadiniintu xaq bay leeyihiin qofku hadduu dembi galo dariiq loo maru leeyahay waaran buu leeyahay laakiin isagoo suuqa jooga in la garaaco ama guriga loogu dhaco waxay ka soo horjeedaa dhammaan qawaaniinta Soomaaliland. waxa loo baahan yahay inaanay taasi niyad jabin. waddanku wuxuu u baahan yahay iyo duniduba warar run ah oo xaqiiq ah. garaac kastaana ummadda dareenkeeda iyo rabitaankeeda ma joojin karo. adduunka oo dhan wuu soo maray saxaafad la garaaco dad la caburiyo kumay guuleysan. intaasoo dictator baa dunida soo martay. Soomaaliland uma baahna inay qaado dariiqa dictatoriyadda. fatarahan ilaahay nabar darro uga dhigo dhaawaca gaadhay. waxa kaloo ka warqabtaan Cabdimaaligna in la garaacay markii burcad laga soo qabanayay. saxafiyiin kale la socotay tafatirahana waa la garaacay. marka kuwaas waa tacaddi iyo xadgudub. laakiin waxaan idinku boorinayaa intaan iyo aday ka qaadaan mooyaane inaan idin niyad jabin. Yacquub Cashe iyo wararka telefishinka GBC.